بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود ديال إذن لهانتين با ميرول بو أجوكتان كسو دوادا حقها حقيقة عيارها oo aad ka daawataan janaalka bartamaha May qodobada aan idin hayno waxa kamid ah kooxda Real Madrid iyo naadiga Club Brugge oo barbara ku kala baxay Juventus, Manchester City, Bayern Munich oo guul gaaray iyo guud ahaan natiijooyinka kulamadii xalayta laga ciyaaray koobka dhagaha weyn ee UEFA Champions League kulub oo wali xasuusta soo laabanshihii taariikhda ahayd ee ay kooxda Liverpool ku horsameysay dhigada Barcelona muxuu ka yiri macallin Zizou sanadii sidaan barbaray xalayta ay la galeen kooxda Club Brugge tartanka UEFA Champions League Barcelona iyo Inter Milan iyo guud ahaan kulamada kale ee caawa laga ciyaari doono tartanka Champions League anigu waxaan ahay Ibrahim Jamuni janaalkuna waa bartamaha May marka la isku soo noqdo wacan daawada hadii ay tahay markii kugu horeysay booqashadaada halkan fadlan subscribe saar kuma gambaleelka la garay fiidiyowga la wadaaga asxaabtaada qaybta faalada inoogu reeb wax walba ee fikirkaaga ah mahadsanid marka la isku soo noqdo wacan macalinka kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa wali xusuusta soo laabanshihii taariikhda ahayd ay ku horsameeyeen kooxda kubadda cagta Barcelona Jurgen Klopp ayaa ka codsaday ciyaartoyda kooxda Liverpool kor kulanka ay maanta la ciyaari doonaan naadiga lagu magacaabo Salzburg in ay soo celiyaan niyadda afarleydii taariikhda ahayd ee kulankii Barcelona kadib guuldaradii ay kaga daafurteen Champions League kooxda Napoli ayaa guul weyn kaga gaartay Liverpool garoonkeeda San Pablo kulankii ay kaga daafurteen groupka E tartanka Champions League xilli ciyaareedka kan kadib markii ay kaga adkaadeen 2 gool iyo eber haddaba macalinka reer Jarmal Jurgen Klopp ayaa shir jiraa'id ka soo muuqday kor kulanka caawa ee Salzburg waxa uu kaga hadlay dhowr arrimood ee quseeya kooxdiisa kubadda cagta Liverpool isagoo yiri aan ka dhigno kulanka maanta midaan ku midaynayno taageerayaasheena Yurub habeenada Champions League waxa lagu saleeyay qaab ciyaareed qurux badan waxaan rajaynayaa in aad mar kale abuurtaan jawigaas ayuu yiri macallin Jurgen Klopp oo hadalkiisa habadina u qaada dhigaya ayaa yiri waxaan xushmaynayaa koox walba ee naga soo horjeeda taasi way qayb ka tahay si kubadda cagta marka timaado Anfield waan ku xushmaynaynaa waxaana ku muujinaynaa arintaasi balse waxaan doonaynaa inaan guul gaarno waxa xusid mudan in Liverpool ay guul taariikhi ah kaga gaartay kooxda Barcelona garoonkeeda Anfield kulankii semifinaalka xilli ciyaareedkii hore ee Champions League kadib markii ay kaga adkaadeen 4 gool iyo eber taa oo ka saaciday in ay u gudbaan kulankii fiinaalaha ee Champions League ugu dambeynna ay ku guuleysteen dhanka kale kulamadii xalayta laga ciyaaray UEFA Champions League Juventus, Manchester City, Bayern Munich oo guul gaaray iyo guud ahaan kulamadii xalayta laga ciyaaray UEFA Champions League waxa xalayta la ciyaaray kulamo aad u xiiso badan kuwa oo kala duwanaa kana tirsanaa kulamada labaad ee guruubiyada tartanka Champions League xilli ciyaareedka 2019-2020 ayaa markaa xalayta la ciyaaray koox badan ayaa guuleysay kuwana waa laga adkaaday kooxda kubadda cagta Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Juventus, Tottenham, Paris Saint-Germain ayaa kamid ahaa kooxihii ugu muhiimsanaa ee xalayta ciyaaray kulamadii koowaad ama kulamadii labaad ee koobka horyaalada Yurub ee Champions League kooxda kubadda cagta Juventus oo ku ciyaaraysay garoonkeeda Allianz Stadium ayaa waxa ay guul 3 gool iyo eber kaga adkaatay naadiga Bayer Leverkusen iyadoo ay goolashaasi kaga mahad celinayaan xidigaha lagu magacaabo Gonzalo Higuain xidiga lagu magacaabo Fernando Fernandes iyo waliba Cristiano Ronaldo dhanka kale Bayern Munich ayaa dhinaceeda xasuuq ba'an u geysatay iyadoo cardaadqada ka dhigtay naadiga reer England ee Tottenham Hotspur iyadoo ku garaacday goolal gaaraya 7-2 goolasha Bayern Munich ayaa waxa ay ka yimaadeen xidigaha kala Joshua Kimmich oo gool dhaliyay xidiga lagu magacaabo Robert Lewandowski oo 2 gool dhaliyay iyo waliba xidiga lagu magacaabo Serge Gnabry oo isna 4 gool xalayta kaga yaabsaday kooxda kubadda cagta Tottenham dhinaca kale kooxda Manchester City ayaa guul ka gaartay garoonkeeda Etihad Stadium kooxda lagu magacaabo Dinamo Zagreb kadib markii ay kaga adkaadeen 2 gool iyo eber iyadoo ay goolashaasi
uralien xidigaha Raheem Sterling iyo waliba Philip Foden. haddaba kulamadii xalayta ee laga ciyaaray heerka guruubyada ee Champions League waxaa ka mid ah Real Madrid 2-2 ee la gashay naadiga Club Brugge. sidoo kale Galatasaray ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay PSG oo hal eber ay PSG ku adkaatay. waa gruupka A. gruupka B waxaa wada ciyaaray naadiga lagu magacaabo FK Gavena Zvezda 3-1 ayay kaga adkaatay naadiga Olympiacos, halka Tottenham ay kala kulantay wacdaro kooxda kubadda cagta Bayern Munich kadib markii 7 gool garka loo geliyay. Group C isna waa la ciyaaray waxaa wada dhelay Atlanta iyo naadiga lagu magacaabo Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk ayaa guriga Atlanta ay ku qaracday. dhanka kale Manchester City waxa ay 2-1 ku dhufatay kooxda kubadda cagta Dinamo Zagreb. Group D isna waa la ciyaaray oo waxaa wada ciyaaray Juventus iyo Bayer Leverkusen. Juve ayaana 3 gool eber ku adkaatay. isla Group D waxaa laga ciyaaray kulankii xiga ee dhexmaray naadiga lagu magacaabo Lokomotiv Moscow ee dalka Russia ka socota iyo naadiga Atletico Madrid. Atletico Madrid ayaana markaasi guul 2 gool eber ah kaga adkaatay naadiga Lokomotiv Moscow. dhammaan kulamadan waxay ahaayeen kulamadii xalayta laga ciyaaray koobka dhigaha weyn ee UEFA Champions League. dhanka kale muxuu ka yiri macallin Zinedine Zidane barbardhicii xalayta ay la galeen naadiga Club Brugge. macalinka kooxda amaba tababara kooxda Real Madrid Ismail Zidane ayaa ka mahad celiyay ciyaartoydiisa qaab ciyaareedkii ay soo bandhigeen kulankii ay xalayta kula ciyaareen naadiga Club Brugge tartanka UEFA Champions League. kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo Club Brugge ayaa xalayta dhibcaha ku kala qaybsaday garoonka Santiago Bernabeu ee caasimada Spain markaasi ka dhisan kulan ka tirsanaa kulamada labaad ee guruubyada ee UEFA Champions League kadib markii ay ku kala baxeen barbardhac 2 gool iyo 2 gool. Zinedine Zidane ayaa ciyaarta kadib u sheegay saxaafadda waxay ahayd natiijo xun laakiin jawaab celinta qaybtii labaad way fiicnayd. ma farxi karno sababtoo ah waxaan helnay hal dhibic oo kaliya ayuu yiri macallin Ismail Zidane. 2 gool ee naga dhashay waxay ahaayeen kuwa lagu qoslo si fiican diiradda uma saaran ciyaartoyda si xun ayaan kaga bilaabnay ayuu yiri. kooxda reer Belgium waxa ay gool nooga dhaliyeen isku daygoodii ugu horeeyay kadib waxa sii xumaatay xaaladda wayna dhaliyeen gool labaad ayuu yiri. macallin Zidane oo hadalkiisa wata ayaa ku daray waxaana u sheegay ciyaartoyda inaan markaasi haysano 45 daqiiqo oo aan wax waliba ku sixi karno waxayna runtii ku guuleysteen inay wax walba bedelaan. waxay ku soo galeen rabitaan weyn ee ah sida aan ku guuleysan lahayn kulanka. haatan waan arki doonaa waxaan ciyaaraynaa kulan soo socda ee horyaalka La Liga. waan ogahay in xaaladda ay xun tahay aan kaga markaasi jirno tartanka Champions League laakiin waxaan sii wadi doonaa howlaheena shaqo iyo waliba isku dayadeena ah inaan guulo ku soo laabano ayuu hadalkiisa ku qaada dhigay macalinka reer France ee Ismail Zidane. dhanka kale Barcelona, Inter Milan iyo guud ahaan kulamada caawa la filan karo in laga ciyaaro UEFA Champions League. kulamo ka tirsan heerka guruubyada tartanka Champions League ayaa caawa la wada in la ciyaaro iyadoo kooxo waaweyn ay dheeli doonaan. kulanka xiisaha badan ee caawa la wada sugaya ayaa ah kan dhexmari doona kooxda Barcelona iyo Inter Milan garoonka Nou Camp ee gobolka Catalonia. kooxda Liverpool, Chelsea, Napoli, Borussia Dortmund, Valencia ayaana ugu madax fiiqana kooxaha caawa ka soo muuqan doona kulamada saaxadda sare ee UEFA Champions League. Liverpool ayaa caawa soo dhaweyn doonta naadiga lagu magacaabo Salzburg xilli ay Chelsea u safri doonto kooxda Lille. kooxda reer Jarmal ee Borussia Dortmund ayaa booqanaysa naadiga lagu magacaabo Slavia Prague halka naadiga Valencia ay soo dhaweynayso naadiga reer Holland waa Ajax Amsterdam. haddaba kulamada caawa laga ciyaari doono guruubyada haray waxaa la dheeli doonaa gruupka E gruupka E kulamo ayaa laga ciyaari doonaa oo waxay kulamadaasi qaarkood soo gali doonaan 7 fiidnimo. waxaa la ciyaari doonaa amaba 7 fiidnimo 55 daqiiqo naadiga lagu magacaabo Greek iyo naadiga Napoli ayaa wada ciyaari doona oo gruupka E ay ka wada tirsan yihiin. isla gruupka E 10 habeenimo waxaa wada ciyaari doona Liverpool iyo Salzburg halka gruup F laga ciyaari doono 2 kulan amaba 4 kulan ayaa laga ciyaari doona gruup F. waxaa ciyaari doona naadiga lagu magacaabo Slavia Prague iyo naadiga Borussia Dortmund. ciyaartooda 1 saac 55 daqiiqo ay soo gali doonta. Barcelona iyo Inter 4 saac ayayna soo caga dhigan doonta ciyaartooda. Group G waxaa ciyaari doona naadiga lagu magacaabo Rasenblasport, Leipzig
iyo naadiga Lyon sidoo kale waxa uu wada ciyaari doona waa 10 habeenimo naadiga lagu magacaabo SC Petersburg iyo naadiga Benfica oo iyagu markaas ka wada tirsan Group G Group H oo ah groupka ugu dambeeya waxa wada ciyaari doona naadiga Lille iyo kooxda kubadda cagta Chelsea halka Valencia ay mininkeeda ku soo dhaweyn doonto naadiga Ajax Amsterdam dhamaan waxa aad soo maqasheen amaba qodobada aan kor idinku soo xusnay dhamaan waxay ahaayeen waxa ugu xiisaha badan maanta ciyaaraha caalamka xogaha xaqiiqda ciyaaraha ee bartamaha meeyeen halka aad kala socoteen anigu waxaan ahay Ibrahim Jamuni waxa dhanka markaasi microphone-ka iyo editing-ka markaasi ku qaabinay saaxiibkayga Cabdikariin Habi tan iyo barnaamijkan mid ka xiiso badan inta aan dib ugu kulmi doono waxaan idin leeyahay guuleysta haddii aad channel-ka ku cusub tahay subscribe dhacnac ku sii like comment-iga iyo in aad rukumato gambaleel intuba waa ballanteena intuba waa dhiirigelinteena mahadsanidin